السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا مركله iyo muuqaalkeena ama casharkeena wali waxaan ku guda jirnay barnaamijkeeni ama course-deeni graphic design gaar ahaan Adobe Illustrator ama Adobe AI aan ku jirnay dabcan ardayda ay part time iyo full time inkastoo ay nala socdaan haddana waxaa jira kale oo barnaamijka nagala socdo iyo naga daawado casharada mar walba marka waxaan ku celinaynaa dabcan loogada waxaa jirto markii dabcan looga maalin hore soo sameynay loogada maadaama aan soo sameynay loogada marka waxaa jirto magacan ismaalna oo Samakaal Hospital project aan dhisaynay dabcan magac sax maahan laakiin anaga dhisaynay project ahaan aan ku dhisaynay waxaan rabnay min bilow ee laga bilaabo ilaa tusad inaan dhisno oo dhameyn wax kasta aan u sameyn doono dabcan muuqaalka koriya ama casharka koriya loogada maadaama aan soo sameynay muuqaalkan waxaan ku baranayna logo variable waxa la loogada color kasto loogada aad ka sameysantay inaad u sameysid ama background inaad u dhigto tusaalahaan colorkan white waa bila background waa cadaan waa kana bila background waa dabcan haddii inta aan soo furo oo inta aan imaado desktop-ka imaanaa ku tusi doona Samakaal Hospital imaanaya Samakaal Hospital marka imaado loogadan waxa waaye loogadan kood waxa bila background waa ama background waxa cadaan waa marka meelaha qaar aan isticmaali doono markaan border waxyaalaha sameyn doono ayaan isticmaali doono tan kale bila background waa marka nooc kale oo as a point as a loogadii ay kamid tahay waa marka waxaan u sameynay kalarka loogadii ay ka sameysan tahay mid kamid ah background u dhignay marka haddana kalarkan aan u sameeyay marka afarta kalar loogadii ay ka kooban tahay ayaan waxa la logo variable la marka loogooyinka kala duwan u sameeyay dabcan soo kale loogadii waxay save gareysan tahay as a Illustrator ama vector aan u save gareeyo tusaalahaan haddii aan ku laabto meesha danka imaan haddii ku laabto inta ku laabto ee ayaan u save gareysan tahay Samakaal Hospital vector waa logo waaye dabcan inta imaan haddii aad u baahan tahay loogadaada inaad kala keebto dabcan hadda kana jooga waxaan u baahanahay kan hexadecimalkiisa inaad qaado double click aan leeyahay hexadecimalka aan rabaa inaad koobiso control C aan leeyahay koobiyana marka background kana rabaa inaad bedelo cadaan ka dhigaysa cadaan iyo hadda laakiin loogadii waxaa jirta ST laakiin kalarkeeda white yahay saas darteed ST waxa double click dhig control V de kalarkan kale ku baasta garay sorry control C de dib u laabo kan arna ina bedelno kan waa daama bedel control V ku dheh kadibna okay de kalarkan kaligiisa bedel hadda loogadeen maxaa waay kalarkeeda white waay haddii aan rabno background kana ka heli karnaa oo kan ugu hooseeyo waay background ka xiraa leena bila background u save garay marna waxaa sameyn kartaa loogadaada maadaama inta aad joogtay control Z mar kale control Z kuli ku celi kalarkana background u dhigi kartaa maya maaha mar kale waxaa sameyn kartaa maadaama kalarkii aad wadato background-kan waxaa sameyn karaa inta anoo jooga aad dropka inta soo qaato kala ku bedeli karaa marka waxaa qarsamaayo HT iyo qoraalkii qaldamaayo marka saas darteed double click dheh HT kadib control V ku dheh qoraalkii waa wataa aniga hexadecimalkiisa wataa qoraalka kale u tag asagana waxaa sameysaa kan ka daaro dheh labadii banaanka soo baa marka qaababkaas oo sameyn kartaa loogada hadaarti inaad bedeshid background-nadeeda hadaarti inaad bedeshid dabcan intaasna waa la fahmi karaa intaas laga rabaa inaad sameyso mid labaad oo laga rabo waxa waaye loogada inaad factor ahaan inaad save gareyn kartid oo beri ka maalin laga yaabo in wax laga bedelo loogada maadaama design-ka aad sameynaysay beri waxaa loo baahan yahay loogadaas isbedel inuu sameeyo saas darteed waxaa laga rabaa inaad as a vector ahaan inaad save gareyn kartid dabcan ardayna la socoto social media lagala socoto waa maasantihiin san u dadaalayno oo mar walba aan iga soo garbahay maadaama casharada aad daawatiin si free guryihiin aad ku daawatiin waxaan ka codsanaa muuqaalada inaad like sartiin wixii fikir ama ra'yigiina hoos qaybta hoose nagala wadaagtiin sidoo kale waxaa jira group Telegram iyo group WhatsApp community jiro qaybta muuqaalka description-ka ayuu yaalaa groupka linkigiisa ku soo biira aad ama maasantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi